jirin adduunka gacalo jirada ka dawoobi maayo farxiyo ajalka aqooda maaya maxay jidiinkana raadsan maayo maxay dareenku jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya ogeyga u jeexin mahayo jacaye la wadaagi maayo jacaye la wadaagi maayo daabila jirin adduunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo gacaloy irtaajalka quudan maayo gacaloy jidniinkana raadsan maayo gacaloy daabila jirin adduunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy irtaajalka quudan maayo qaliyay jidniinkana raadsan maayo macaaney. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا دماء شوينت الصوماليات مقعي هو حمزة حداد وآه هالأبور كنو المقالة بورما وحن معانتا بطن كو قوانيا كليب أن كو كلا ساريا ولا لها خلاف كير معنا الدرادة كدح على اسمي اسكو قبصدي هاس أنا وح بورن أهين هدبا كليب كيغا نوحو قيبسمي دونا صدح نوع ومركا كوبادينا صو شيغو تاريخ داي heestan iyo maraaxiisha kala duwan ay soo martay marka labaad inaan sheego sababaha keenay inaan mid marka hore u dhiibo marka labaadna mid kale u dhiibo waa marka saddexaad inaan tala guud bulshada iyo iyagaba siiyo ku saabsan heesta iyo arinkeeda oo ku saabsan wada dhalashada iyo wada noolaanshaha oo ku saabsan wada jirka iyo wada shaqaynta inta waa inta haddaba waxaan ku bilaabayaa inaan qisadii heesta ku horeeyo waxayna u dhacaysaa sida tan min bilow ilaa dhammaad waxaan ka hadli doonaa xaqiiqooyinka ku gadaaman heesta jawi caashiqa ama jabiila oo muran badan ka dhalisay baraha bulshada. heestu taariikh ahaan waxay ku suntan tahay inay sameeyay dabayaaqadii sanadkiina dhaafay 2017 xilligaa oo ku beegneyd markii aan isbaranay Dayaxdal Nuurshe oo igala soo xiriiray baraha bulshada gaar ahaan barkulanka Facebook kobtiisa Messenger. wuxuu sheegay inuu Boorama ku soo socdo oo iman rabo sidaa daraadeed uu rabo inaan gacan saar faneed iyo suugaaneed yeelano oon si kaashano oon aniguna qofka heesaa u qoran noqdo isagna ka iigu luuqeeyo noqdo. kumaan diidin aniguna waan u riyaaqay waan ku soo dhaweeyay waxaan waliba ku soo dhaweeyay weji furan laafayo gobonimo raganimo muddo yar kadib waxaan maad aragtay heeskanaan la damcay inaan u dhiibo oo heesa la siiyaa ma jiraan laakiin la isku dhiibaa heeskan baan damcay inaan u dhiibo xageen kuugu soo diray baan ku yidhi WhatsApp inay saaxiib yihiin leeyahay oo Bakar la dhaho ayuu ii sheegay WhatsAppkii baan ugu soo diray oo wuxuu ii sheegay inuu isagu kiisii dib u soo ceshan doono intuu maad aragtay kiisii soo ceshan doonana ninkan ay had iyo jeer wada joogaan oo wixii WhatsApp naga gala uu ka saaxiibkii aan ka wada xiriiri doono inta kale Messenger-ka aan ka xiriiri doono. waxaan dib tagayaa maalintii horeysay ee siiyay heesta oo ku beegneyd 29 November 2017 magaceedu ugu qornaa Messenger-kan ku save gareeyay waatan heestii sidaa isha marka aad u mariso wax farxiyo la dhaho oon ku sheegayahay idinkama muuqato meesha iyada ah. codkaygaasina haddaan ku sheegi lahaa inaan cid u hibeeyey oo aan farxiyo u hibeeyey oo kaa dhegeyso. adoo janno ii ahaaday haweenku ag joojin kaari maayo quudan maayo jilniinka weyn macaanu jacayl la wadaagi maayo adoo janno ii waxaan u akhriyay uun heesta intaa qoraalka isaguna feedback-an ka soo bixi. السلام عليكم أبانا وأكو سلامي hees ku dhaafay heesan ku qancu noqday waa sharfantahay ilaahay ku sharfo ilaahay ku daayo waan ku kalsoonaa marka haddana Messenger-kan kala soo hadlaya bal hal mar iimaad. intaa kadib wuxuu u soo boqolay Dayaxdal Nuurshe Boorama muddooyinkii hore uu soo galay wuxuu iibsaday taleefan cusub WhatsApp-kiisii iyo numberkiisii caadiga saxda ahaa ayuu la soo degay. waa kan January 8 ayaan WhatsApp ka wada xiriirnay
waa maalmahaas waxay ku beegneed markii muuqaalkan uu Instagram-ka iyo Facebook iyo meel walba uu isagu soo geliyay ee Snapchat-ka ku duubnay ay ku mudaysnay. haddaba muuqaalka aan idinka yarsiiyay ifafaale heeska anigu uma qorin Farxiya, haddaan qoray de magaceeda ka dhex muuqan lahaa ama intaas meelo aan de ugu sheegi lahaa baa jiray. heeska wuxuu maad aragtay dayax damac baa kaga jiray, laakiin anaa ka hor joogo niyo qaafiyad ahaan kuma habboona ka joogtay ku hayay. habeenka wuxuu duubay Snap gabadhiyoona dhex joogta. had iyo jeer aan ku marbi jirno war ka daayiyo neew igu daayiyo ka daaban sooran jirnay. gabadhiyoona dhex joogta daan waan la marbi kari waayay. gobonimaduna waxay isiisay inaan maad aragtay de u qurxiyo oo nidhaa ha Farxiya Jamiila. وحسكي محمد فرحية ماسك فرحية عند عمسة فرحية جميلة محمد فرحية ماسك فرحية عند عمسة فرحية جميلة anigoo kalsooni na ku qabayna niyadana ku hayay inaan heeskan ka qiimo badan u sameeyo oo maad aragtay Nabiil xataa laxanka ugu dhiibo oo si uu kaga maarmo tan uu rabay inuu iga khalkhaldo. haddaba markuu habeenkaasi sidaa u dhacday gobonimada ka raacay la macaaneeyay ileen gabadhii ku soo eegaysan iyo jabin meyside ayaan isaga la soo hadlay u sheegay maad aragtay inuu heesku inaan saa ka maarsamin aanan qof hore u hibeeyay una joojiyo de heesta sidan uu ka dhigayo. intaa waxa dheeraa inuu ila qaatay oo waayahay kuma noqonayo waxaas oo kale inuu guuri. waa habeenkii walaac heestii walaac in anigu u sameeyay soo baxday waa 19 Maarch markaasi. waa gooraan isku waafaqsanahay heestan in Jamiila lagu daayo. codkiisa dhageyso, codkaas baa ku cadeynaya in heestan anaaniyo isagu waa aqoonsanayn Jamiila. dib kasta ma garanaysaa heesteeni Jamiila waxaan la ahay musician ku soo bixi karo wuxuu yidhi heesteeni Jamiila waxaan laayahay musician ku soo bixi kara. intaa wixii ka dambeeya waxaan dhimad aragtay codkaasi noo gaaru ka hadlay oo aan shaxaan waafaqsanayn in bulshada lala wadaago. intaa waxaan ku darayaa 2 jeer oon u sheegay cidda aan u hibeeyay. وكا ضيحو هيسن جميلة waxaan u hibiyay gabadh la dhaho bala magaca waka inta ii ogsoono saaxiibiinta yar inta uu arkay oo soo wacay waayahay buu yiri haddana markaa bishii saddexaad bay ahayd haddana bishii afraad waaniga haddana ugu sheegay hooyaysan Jamiila waxaan u hibiyay intii baan xasuusiyay kula dardaarmay haddaba dayax anigana ma aragtay wajibigu la socdayo ma aragtay in heesku Jamiila tahay Nabiilo ah saaxiibkeena de laxanka igu filnaysay Farxiye buu ku yiri oo ma aragtay miisiga markii la soo tumay habeenun baa sikadiisa la tusay oo arkay وانا كحماضي qof aan u hagar baxayo oo khiyaamaya markii baan go'aansaday inaan ka wareejiyo waana ka xumaaday qof aan u hagar baxayo oo khiyaamaya markii baan go'aansaday inaan ka wareejiyo haddaba waad aragteen qisada ay soo martay heestani sababaha keenay inaan go'aan qaato oo ka wareejiyo dayax una wareejiyo Marwaan waxay ku qotomeen saddexdaas oo kala ah waa midda koobaad inuu dayax noqday qof hal abuurkiisii khiyaamaya oo anigana si la shaqeynaya cid kalena si ula shaqeynaya oo heestii Jamiila ahayd ka dhigaya Farxiya isagoona aniga ifafaala iyo dareen iga siinay arinka waxaan ka leeyahay qofka ma aragtay hadduu ku khiyaamayo oo dadna aaminto taas waa daacadnimadaada laakiin markaad ogaatay inuu ku khiyaamaya haddaad
wada shaqayntii sii wadato barteedii ka sii wadato taasi waa doqoniimadaada qodobka intaa waan ku dhaafayaa ninkaasoo i khiyaamay waa qodobka labaad wuxuu ahaa inaanay dhawduba u dhacsanayn dayax erayada aanu fahmayn waxa aan anigu curinayana heestii horeeyay siiyay bay ahayd tii labaad siiyay walaac bay ahayd walaac wuxuu qaaday isaga oo maad aragtay qoslaya heesta odhanaysa adoo la xashii wadaan wadnaha kugu sii hayaa adoo walwal la rabaan waxnaanana kuu sidaa markaad cadawii wadhaan nacabka kaa waabiya adoo waranii sitana anigu wehelkaadaya adoo ni wanaajinaynayaad igu weyntaho haddaad islahayd waxyeel walaac kuma badi karo wad baa nolol moodaya heeska sidaa odhanayuu dayax isagoo qoslaya qaaday kaaga darane ilaa iyo iminka wuxuu ka qaadaa aroosyada oo waa hees damaashaad iyo aroos buu ka dhigay heestaa qiirada iyo dareen kale taasna waxay caddaynaysaa inaanay dareensanayn una fahmi karin erayadan macnahooga taa markaan arkayna waxaan go'aansaday inuu heestanna meel aanu qalmayn la mari doono sidaa daraaddeed aan ka wareejiyo waa qodobka saddexaadna wuxuu yahay dayax tallaabo walba wiila socodsiin jira heesahaygii hore aan siiyey waa maryan iyo walaac baa ku jira miidyaha oon siiyey walow uuna maryan xuquuqdaydii uuna dhowrin ouna ku soo xusiin channelkiisa iyadoo ku soo baxday haddana labadaa heesee hore waan kala warqabay codka markii laga qabtay waan ogaa waan ka falcelin jiray sidan dhe iyo sidan dhe baan odhan jiray laakiin tan lamaaban ogeynba wuxuu ka soo daba heesay uu iska abaabushay uu iska soo qaaday markii marwaan soo heesay sidaa daraaddeed bulshaweynta Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa heeska originalkiisa anigoo ah hal abuurkii sameeyay waxaan u aqoonsanahay marwaan yare walaalkay dayaxna waan ku ixtiraamayaa inuu soo qaaday allaha sharfaan aan leeyahay laakiin originalka heeskaasi waa marwaan yare ugu dambeyntii labadaba waxaan kula talinayaa u soo jeedinayaa inay khilaafka intaa ku dhameeyaan dad walaalo oo wada dhashay baynu nahay dad dhiig iyo dhalasha midaysay baynu nahay dad diin iyo af iyo dhaqan mideeyay baynu nahay sidaa daraaddeed isqa qabsigeena iyo marogkeenu dan uma aha bulshada ina fiirsanaysa waxaan idinku boorinayaa wax gudaha lagu xallin kara dibadda u soo saarina waxa kaloon idinku boorinayaa oo waliba si gaar ah dayax ula sii hadlayaa ma aha in magacaaga oo weynaaday tayada suugaantaada waxaasi kibirku geliyaan oo gaadha heer aad xusi weydo qofka kale uu soo qaaday leedo tiraado fanaankii yaraa kan sameeyay ma haboona waana ka waaninayaa nin walaalkaya tahay in la iska madaragtay booriyo waxyaabaha khaldanna waa wax meesha yaala haddaan qaldamo saadii qaban lahayd baan aanu haddaad qaldanto ku qabanaya nin saaxiibka ayaan ahay taasana ku leeyahay khilaafkuna intaa ku dhamaado walaalaatihiin marwaan anigu waan qabtay oo ha u jawaabin baan ku yidhi ninkaa dayax waa nin calool fiican waa nin wanaagsan hadduu de wax tabanayo inaga soo gaadhayna dee waana xalinaynaa laakiin ha u jawaabin baan ku yidhi waanu i maqlay uu iga yeelay baaqaygii ahaa inaanu u jawaabin umuna jawaabin runtii ixtiraamka iyo wada dhalashada iyo gobonimaduna taasay ku jirtaa intaasaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh